kulanti wanaagsan daawadayaal meel kasta aad joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijkeena ka ah wararka aan ku soo gudbino wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya caalamka fadlan jarmalka haddii aad ku cusub tahay subscribe saar gambarka furo una share garay saaxiibada meel kasta ay joogaan adigoo commentiga like-na inoo reebaya aad baad u mahadsantiin qodobada aan kugu soo gudbin doonaan waxaa qayb ka noqon doona midowga musharaxiinta mucaaradka oo soo kala dhaxgala khilaafkii ugu cuslaa haddaba khilaafkaasi midowga musharaxiinta gul siyaasadeed ma noqon kartaa madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday maxamed cabdullaahi farmaajo sidoo kale waxaa daawad doontaan barnaamijkeena aan ku soo gudbin doonaa saaxiibayaal mid ka mid ah askartii loo qaaday tababarka ee dalka Eritrea oo la soo sheegayo inuu u geeriyooday rafaad iyo gaajo daran oo soo wajahday xog arrintaas ku saabsan ayaa daawad doontaa dowladda federaalka maxay ka tiri shacabku ay ku banaan baxayaan waxaa sidoo kale barnaamijkeena kugu soo gudbin doonaa madaxweynayaashii hore dalka xasan sheekh maxamuud iyo shariif sheekh axmed oo maanta kulmay maxay ka wada hadleen xogihii ugu dambeeyay madhabqa in labada dhinac ay heshiinayaan maadaama khilaaf culus uu ka dhaxeeyay sidoo kale waxaa daawad doontaan oo barnaamijkeena caawa qayb ka noqon doona ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo wada wali dadaaladii ugu dambeeyay ee qabsoomida shirkii arrimaha doorashooyinka Kenya oo mar kale dhabar jab culus kala kulantay dowladda federaalka ee Soomaaliya qodobadaas ayaan ku faahfaahin doonaa fadlan haddii aad ku cusub tahay subscribe saar gambarka furo una share garay saaxiibada meel kasta ay joogaan adigoo commentiga like-na inoo reebaya aad ayaad u mahadsantihiin aan ku bilowno waxaa shalay soo baxay qoraal ay midowga musharaxiinta shaki ay ugu muujiyeen dhexdhexaadnimada ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble qoraalkaas oo ay faafiyeen xubno ka mid ah musharaxiinta ayaa xilli dambe waxaa ka daba yimid diidmo aan heerkeedu sareyn oo ka mid ah midka ay ku doonayaan ama mid ka mid ah hogaamiyaha xisbiga wasiir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame wuxuu qoraalkaas ku tilmaamay mid ay dad gaar ah qorteen taas oo laga dhigay khilaafka ama lagu abuuray khilaafka soo kala dhaxgalay midowga musharaxiinta mucaaradka xogta aan helnay waxa ay sheegaysaa inuu aad u jiro khilaafka soo kala dhaxgalay midowga musharaxiinta isla markaana si weyn ugu kala qaybsan yihiin dhaleecayntii shalay loo jeeday wasaaraha halgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble waxaa qaad dhacay oo ahaa in la faafiyo iyadoo go'aamo rasmi ah oo ay u dhameen midowga musharaxiinta warqadda qaar ka mid ah ay ka soo baxday taas oo si weyn ugu carooday hogaamiyaha midowga musharaxiinta Cabdiraxmaan waa hogaamiyaha midowga musharaxiinta Shariif Sheekh Axmed ma jiro musharax ka mid ah golaha oo si toos uga hadla qoraalka ama diidmo weyn kala hor yimid sida ay xaqiijeen xubnaha ka mid ah midowga musharaxiinta waxaana dhacdadan la sheegay inaysan ahayn mid markaas ku cusub maadaama muddooyinkii ugu dambeeyay ay soo kala dhaxgalay dhinacyadu khilaafkii ugu xumaa oo la sheegay in markaas ay ku qaybsameen arrimaha dagaalkii ka dhacay Muqdisho oo looga soo horjeeday muddo kororsi uu sameeyay madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo markana dalka Eritrea waxaa macluumaad iyo faahfaahin kala duwan ay ka soo baxayaan mid ka mid ah askartii loo qaaday dalka Eritrea kaas oo la sheegay in tababar ahaan ay ku joogaan dalkaas isla markaana halkaas ay ku maqan yihiin muddo 3 sano ah kadib doorashadii madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waalidiin fara badan ayaana si weyn uga carooday aragtida ah in ardaydooda ama in caruurtooda ay weli aysan arkin isla markaana hordhaca ay heleen wararka sheegaya in dhimasho iyo dhaawac ay ku noqdeen dagaalkii ka dhacay dalka Ethiopia haddaba mid ka mid ah askartaas ayaa maanta xogta aan helnay waxa ay tilmaamaysaa in markaas uu geeriyooday gaajo iyo rafaad daran kadib markii loo diiday raashin ama wax ay quutaan ama ay cunaan ciidamada dalka Eritrea lagu wargeliyay inaysan sii karin wax raashin ah sarkaalkaas waxaa lagu magacaabaa Axmed Cabdirashiid Hilowle waxaa sidoo kale eeladiisa ay la soo xiriireen ka wararka in ay jirto cabsi kale ay qabaan in caruurta kale ee askarta halkaas loo qaaday in ay sidaan oo kale u geeriyoodayaan weli ma jirto dowladda federaalka ee Soomaaliya wax jawaab ah ama hadal ah oo ka soo baxay ku aadan caruurtaas halka ugu geeriyoonaysa gaajada iyo haraadka waa dalka Eritrea weli waxaa daawanaysaa saaxiibayaal barnaamijkeena ka wararka fadlan haddii aad ku cusub tahay subscribe saar gambarka furo una share garay saaxiibada meel kasta ay joogaan adigoo like commentiga inoo reebaya aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin markaana madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmed ayaa maanta kulan xasaasi ah ku yeeshay hooga uu magaalada Muqdisho ka degan yahay madaxweyne Sheekh Shariif kulankan ayaa sidoo kale waxaa qayb ka ahaa
xubnaha markaasi ka tirsan midowga musharaxiinta gaar ahaan xildhibaan faarax sheekh cabdiqaadir iyo xildhibaan maxamed abuukar sow ducaale waxaana looga hadlayay xaaladda siyaasadda ee dalka iyo arrimaha doorashooyinka. madaxda shirka ku hoos hoolida gudoomiyaha golaha midowga musharaxiinta ayaa waxaa kulankooda diiradda ay ku saareen wadahadal kala filaya inay dhowaan ay ka furmaan magaalada muqdisho sida ay u sheegeen kaaha wararka xubno ka agdhow. sidoo kale waxaa kulanka looga hadlayay sidii ra-iisul wasaare Roble loogu qancin lahaa ama loogu gacansayn lahaa dardargelinta hawsha doorashooyinka ee loo xilsaaray xilli qaar ka mid ah musharaxiinta mucaaradka ay walaac ka muujiyeen dhexdhexaadinta ra-iisul wasaare maxamed xuseen Roble. qaar ka mid ah golaha midowga musharaxiinta ayaa hore walaac uga muujiyey dhexdhexaadnimada ra-iisul wasaaraha inkastoo qoraalkaas aysan isku raacin midowga musharaxiinta dhammaantood. golaha ayaana haatan waxaa soo kala dhexgalay khilaafkii ugu cuslaa islamarkaana ay ku kala qaybsameen talaacintii loo jeediyey ra-iisul wasaare maxamed xuseen Roble. markana haddii aanu aadno saaxiibayaal, dowladda Kenya ayaa waxa ay wajahaysaa cadaadis xooggan kadib arbaaxadii ay kala kulantay dowladda federaalka. Kenya ayaa wajahaysa cadaadis xooggan oo ugu imaanaya go'aankii ay hore ugu joojisay duulimaadyadii Soomaaliya xilli dhowaan dib loo soo celiyay xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal. sida uu qoray wargeyska Daily Nation, ganacsiyada beeraleyda jaadka ee Kenya ayaa dowladda Kenya ku cadaadinaysa in si buuxda dib loogu soo celiyo xiriirkii siyaasadeed ee labada dal si ay u bilaabaan dhoofinta qaadka ee Soomaaliya. Kimahi Munjuru, gudoomiyaha ururka ganacsiyada jaadka ee dalka Kenya oo la hadlay wargeyska ayaa waxa uu sheegay in dowladda ay ku degdegtay in xayiraad ay ku soo rogto duulimaadyadii u kala goshi jiray Soomaaliya iyo Kenya, taas oo ay si culays ay ku soo saartay dowladda Kenya in markaas ay sii joojiso ama ay raadeen in dowladda federaalka ay sii joojiso qaadka loo soo dhoofin jiray dalka. gudoomiyaha ayaa go'aankaas ku tilmaamay mid ra'yi qaldan ah islamarkaana aan laga fiirsan oo si kala fogeynaya labada dowladood oo aan dhowaan markaasi dowladda Qatar ay dib u soo celisay xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal ay lahaayeen. ganacsiyada qaadka ee Kenya ayaa maalin kasta u soo diray jiray Soomaaliya gaad fara badan iyagoona ka sameyn jiray dakhli aad u badan si ay ugu noolaadaan uguna maareeyaan waxyaabihii markaas wajahaya ama culaysyada kale ee soo wajaha. balse haatan waxay u muuqataa sheekadu in Kenya ay wajahayso arbaaxo kale cadaadis xooggan oo kaga imaanaya dhanka dowladda federaalka ee Soomaaliya, taas oo wajigab ku noqotay madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta kadib markii uu kulan la qaatay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya maxamed xuseen Roble caleemasaarkii ay ka wada qayb galeen dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geele. qaybihii dhexe ee barnaamijka ka ah wararka ayaadna daawanaysaa saaxiibayaal. fadlan haddii aad ku cusubtahay channelkeena subscribe saar gambalkana furo una share garay saaxiibada meel kasta ay joogaan adigoo commentiga like-na inoo reebaya aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. haddii aan eegno wararka ugu waaweyn ee dhanka caalamka, ururka Xamaas ayaa gantaalo ku garaacay 2 magaalo oo ka mid ah dhulka Yuhuudda xoog ay ku haystaan, halka ciidamada Yuhuudda ay maanta marka ay duqeyn xoog leh oo dhanka cirka iyo dhulka ay la beegsadeen qaybo ka mid ah ama qaybo kala duwan oo ka tirsan magaalada Gaza. duqeymaha ayaa waxaa Israa'iil ku bartilmaameedsan guryo ay degan dad rayid ah, xarumaha amniga iyo xarumaha dowladda ee markay Gaza. sidoo kalena duqeymaha ayaa si ulkac ah waxaa lagu burburiyay tiro ka mid ah wadooyinka waaweyn iyo isgoysyada, taas oo sababtay burburka qaybo ka mid ah kaabayaasha dhaqaalaha ee magaalada Gaza. Xamaas ayaa dhankeeda gantaalo culus la beegsay magaalooyinka Israa'iil ee kala ah Ashqalon iyo Beersha, waxaana saraakiisha caafimaadka Israa'iil xaqiijiyeen dhaawaca 13 qofood oo Israa'iiliyiin ah, inkastoo aysan jirin ilo madax bannaan oo xaqiijinaya khasaaraha ka dhashay. intii ciidamada Israa'iil ay wadeen waxa ay ugu yeereen wejiga cusub ee dagaalka ay ku hayaan Gaza. warbaahinta Israa'iil ayaa ku warantay in ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu uu ka qaybgalayo xafladda sheegay in loogu dabaaldegayo natiijada guusha ee laga gaaray duqeyntii cirka ahayd ee diyaaradaha dagaalka Israa'iil ay ku bilaabeen 7 ka hor maraykanka Gaza. balse waxaa hadda lagu soo waramayaa in Netanyahu uu xafladdaas ka baaqday sabab la xiriira Netanyahu ka baaqshiisa dabaaldega ku aadan in suuqgeyn loo sameeyo ka guuleysiga ama ka guuleysyaha iska caabinta Gaza kaga imaantay xuutiyiinta ama ururka Xamaas ee si weyn ugu soo horjeeda. guud ahaan daawaya waana geynta wararka Soomaalida iyo caalamka kala socotaan channelkeena ka ah wararka. fadlan haddii aad ku cusubtahay channelka subscribe saar gambalkana furo una share garay saaxiibada meel kasta ay joogaan adigoo commentiga like-na inoo reebaya aad iyo aad u mahadsantihiin daawashadiina. nabadgelyo.